Turkigu waxa uu ku dadaalayaa mideynta awoodaha caalamka Islaamka iyo isku xirka bulshooyinka Muslimiinta laga soo bilaabo Falastiin ilaa iyo Turkistaanta bari. Tan iyo markii uu xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee Turkiga ku guuleystay talada dalka sanadu markay ahayd 2002 ilaa iyo maanta, ma ayna kala joogsan dadaalada xukuumadda Erdogan ee garab istaagga bulshooyinka Muslimiinta ah ee lagu gumaadayo daafaha dunida, ha noqoto Falastiinta la haysta ama bulshooyinka kale ee Muslimiinta ah ee ku dhiban Bulgaria, Greek iyo dowladaha kale ee Balkaniska. sidoo kale hay'adaha Turkiga ee gargaarka ayaa meelo ka fog kumanaan mayl dhulka Turkiga gaarsiiyo gargaaro kala duwan sida Muslimiinta lagu dhibo Burma iyo Filibiin. Turkigu waxa uu wadaa dadaalo diblomaasiyadeed si Shiinuhu u joojiyo xadgudubyada ka dhanka ah Muslimiinta ee uurka, waxa uuna magangelyo siiyey dadyowga qowmiyadda ee ka soo cararaya xadgudubka foosha xun ee uu ku hayo Shiinuhu. Erdogan markii uu talada dalka la wareegay waxa uu si rasmi ah u dalbaday ilaalinta masaajidda Bulgaria kadib markii ay soo gaartay in masaajidda qaar laga dhigay maqaaxiyo iyo meelo lagu damaashaado. waxa uuna heshiisyo la galay xukuumadihii kala duwanaa ee soo marayay Bulgaria si dib loogu habeeyo 10 masaajid. dhinaca kale dadaaladii uu Turkigu ka waday Filibiin oo ku soo idlaaday guul taariikhi ah iyadoo heshiis uu dhex maray xukuumadda Filibiin iyo jabhadda xornimo dirirka ah ee loo yaqaan Moro. heshiiska ayaa dhigaya in Muslimiintu u madax bannaanaadaan maamulkooda, halka ay ka aqbashay jabhadda Moro ku wareejinta hubka cidda loo xilsaaray oo ku jirta hay'adda gargaarka ee Turkiga, iyadoo ku xirtay shardi ah in hubka lagu kaydiyo dhulka Muslimiinta gudihiisa. arshiifka boqortooyadii hore ee Cusmaaniyiinta ayaa laga helay warqad caddaynaysa kaalmo dhaqaale oo kaga timid Muslimiinta gobolka Arakan Burma sanadku markuu ahaa 1017 waqtigaa oo ay boqortooyadu dhib ka soo gaaray dagaalkii Balkaniska. Erdogan ayaa jawaab uga dhigay mucaaradka dalkiisa warqadan taariikhiga isagoo ku fasiray taageerada uu hadda siinaya qowmiyaddaasi laga tirada badan yahay ee ku dhibaataysan dalka Myanmar. xukuumadda Turkiga ayaa ku qancisay dhigeeda Bangladesh inay martigeliso 600,000 oo ka soo jooda Burma, iyadoo ballan qaaday inay u fudin doonto gargaarka insaaniga ay u baahan yihiin. waxa ayna u dirtay 4 markab oo gargaarka degdega si loogu gurmado dadka laga tirada badan yahay ee soo barakacay.